بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دمان أنيقو محمد عبد الرزاق حسن iyo kanalka Softgate Academy waxaa mar kale kusoo dhawaataan barashada software developmentiga gaar ahaan koorskan aadka u xiisaha badan oo runtii arday badan ay soo dalbadeen koorskaas oo ku saabsan computer programming in C language barashada cilmiga computer programmingka gaar ahaan in lagu barto luqadda C language halkan waa Softgate Academy waxaan rajaynayaa in aad subscriber ka tahay kanalkeena sidoo kale pagekeena Facebook aan ku leenahay iyo dhammaan social mediaha sidoo kalena aad booqato websitekeena softgateacademy.com anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Xasan ayaa koorskan inoo soo jeedinaya insha Allah hadduu ilaa yiraahdo koorskan wuxuu noogu saabsanaan doonaa sida mawduuca aad ka aragtaanba waa computer programming in C language luqadda aan isticmaali doonana waa C language koorskan wuxuu ku bixi doonaa labada luqadood ee Englishka iyo Soomaaliga ayuu ku bixi doonaa haddaan hore usii galno insha Allah casharadan waxay noo noqon doonaan casharo taxana ah oo serious ah koorska oo dhammaystirana waxaad ka heli doontaa goordhow softgateacademy.com haddaad gasho haddii aad tahay ardada ku xiran pagekeena Facebook iyo YouTube-kana waxaad ku heli kartaa si bilaasha koorskan marka waxaan ugu talagalnay in koorskan programmingka basic programmingka in lagu barto 20 maalmood ayadoo meesha aysan ka baranayn qofka 20 maalmood ku baran kara waa qof ugu yaraan leh khibrad computer basic ah haysta fahmi kara wax laga wado software wax laga wado hardware iyo sida programmingka uu shaqeeyo inta kalena waxaan rajaynayaa in koorskan hadaad qaadato aad ka faa'iidi doonto runtii insha Allah aad la qabsan doonto oo wax problem aysan kugu noqon doonin hadduu alla idmo haddii wax ay jiraan su'aal ay jiraan waxaad igala soo xiriiri kartaa LinkedIn account-kayga Facebook-gayga ayaad igala soo xiriiri kartaa halkaas ayaan waxaan ku iraahdaa idinkaga caawin doonaa insha Allah sidoo kale documentigan waxaan idin soo dhigan doonaa linkiga description-ka ayaan idin soo dhigi doonaa isagoo complete halkaas ayaad kala degi doontaa insha Allah hadduu ilaa yiraahdo hore aan usii galna marka koorskeena waxaan u qorsheeyay marka in 20 maalmood lagu barto programming in C 20kaas maalmood marka waxay noo noqon doonaan qaabkan maanta ayaa ugu horeyso day 1 waxaan qaadanaynaa introduction to programming and C ayaan qaadanaynaa oo waxaan topigyada aan gali doono waxaa kamid ah ilaa 5 ayaan gali doonaa waa maxay programming basic programming language C language maxay tahay iyo environmentiga la rabo in C lagu hormariyo sida loo diyaariyo iyo code-ka ugu horeeya programka sida loo qoro hello world sida loo qoro sidoo kale waxay inoogu xigi doontaa sida inaan fahanno wax liiga wado variables maxay yahay variableska statisticska iyo xisaabaadka lagu qaadin jiray miyaa waa variable kale waan arki doonaa sidoo kale maxaa laga wadaa data types maxaa laga wadaa computerka wuxuu la macaamilaa different data so marka data typeska programmingka uu leeyahay maxay kala yihiin marka waan arki doonaa operators maxay yihiin marka every program waxaa la rabaa inuu shaqo qabto operation uu sameeyo mostly waxyaabaha softwareka loo isticmaalo waxaa kamid ah in operators uu sameeyo ama operation uu sameeyo for example haddii business software uu yahay waxaa laga rabaa inuu sameeyo arithmetic operations mathematical operations logical operations waxaasoo dhan inuu sameeyo ayaa la rabaa marka operatorska isagana waan arkaynaa sidoo kale user input qofka haddii programku isticmaalayo waxaan u baahanahay in user input uu sameeyo qofka userka wax soo geliyo hadduu qiimo ay tahay haddii ay tahay maxaan ku idhahdaa value hadday tahay string ama statement kale hadday tahay dhammaan waxaan rabnaa marka userka inaan aqbalno wuxuu soo geliyo computerka for example aniga hadda computerka user input waan samey karaa anoo isticmaalayo input output device for example folderka waan furi karaa okay for example waxaan samey karaa Google Chrome waan soo kicin karaa marka waxaasoo dhan waa input waa inaan computerka amar aan siinayo okay so waxaa maalinta shanaad aan sheegi doonaa conditional statements afwan conditional statementska laba aan kala qaybinaynaa qaybta kood waxaan uga hadlaynaa if else ayaan uga hadlaynaa qaybta labaad waxaan uga hadlaynaa switch ayaan uga hadlaynaa marka dad badan waxay aaminsan in luqadda C programmingka ay luqad aad u adag tahay laakiin runtii waa luqad aad u fudud maxaan ku iraahdaa luqadaha ugu horeeyay kamid ah programmingka 1970 soo baxday maxay marka muhiim u tahay luqadda C language in la barto gudaha waa ku arkaynaa marka waxay muhiim u tahay qofka albaabka koowaad ka galaya programmingka waa luqad uu ku bilowdo waa qofka intuusan aadin luqadaha kale waaweyn sida Python Java iyo luqadaha kale ee cusub ee waaweyn PHP
waa luqad marka uu albaabka ugu horeyso uu ka gali karo waaye. sidoo kale waxaan arki doonaa loops ayaan arki doonaa maalin toddobaad. sidoo kale waxaan arki doonaa loops oo laba lagu kala qaybiyey. qaybtan kore waxaan uga hadli doonaa for loops, dhankan waxaan uga hadli doonaa while loop iyo do while loop. array iyo string ayaan ka hadli doonaa. functions ayaan ka hadli doonaa, runtii ciwaan muhiima. functions oo laba qeyba. marka ciwaanadan oo dhan programming waa lagu arki karaa, sida conditional statementiga, loopka, taking user inputka, operatorska, variableska, dhammaan luqadaha programming way ka sameeyeen. luqad walba programming waxay leedahay condition statement, waxay leedahay loop, waxay leedahay maxaan ku idhahdaa array, waxay leedahay pointer, waxyaabahaas oo dhan functions ay leedahay luqadaha oo dhan. marka pointers aan arki doonaa, memoryga sida uu programka u maamulo, maadaama software anaga aan sameynayno. software hadaan sameynayno, marka softwarekaasna uu ku shaqeynayo, uu ku dul shaqeynayo computerkaasna hardware uu leeyahay. hardwarekaas marka sidee ayuu u isticmaalaa memoryga. hardwarekan waxa ugu muhiimsan waxay tahay waa CPU-ga iyo memoryga ayaa ugu muhiimsan, waxaana soo saddexeeya diskiga ama storage-ka ayaa soo saddexeeya. sidoo kale waxaan arki doonaa file handlingka, text fileska sida uu ula dhaqmo, ama fileska caadiga sida uu ula dhaqmo programmingka in C. sidoo kale waxaan arki doonaa dynamic memory allocation, malloc iyo free ayaan isticmaali doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. in dynamic memory allocation la sameeyo, qiimayaal la siiyo. sidoo kale waxaan arki doonaa function pointers oo ciwaan kala ah. recursion ayaan ku arki doonaa oo xisaabaadka badan aan lagu arko ayadana, oo sida loopka oo kale ah ayaan arki doonaa recursion inaan sameyno, problemna aan ku xalino. coursekan marka wuxuu kaga duwan yahay course kale aad YouTube iyo meelaha kale aad ka heli karto, waxay tahay in uu noo lahaan doono insha Allah final project. ciwaan walba ciwaanadan hadda aan soo aragnay dhammaan markaan ka baxno waxaan sameyn doonaa project dhammaystiran ayaan sameyn doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. mar kale kusoo dhawaaw muuqaalkeena koowaad. maanta waxaan ka hadlaynaa day 1. ciwaankeenana wuxuu yahay introduction to programming and C. haddaad rabto documentigan inaad hesho, waxaad ka heli kartaa descriptionka hoose, ayaa ka heli kartaa si bilaasha. okay, marka waxaan rabnaa marka inaan ii sheeg wax programming ayaan rabnaa. marka waa su-aal inaan isweydiino ay tahay, haddaan rabno inaan wax programming, programkeena xaguu ku shaqeyn doonaa? programkeena wuxuu ku shaqeyn doonaa, wuxuu ku dul shaqeyn doonaa wax la yiraahdo computer ayuu ku dul shaqeyn doonaa. programkeena wuxuu ku dul shaqeyn doonaa computer ayuu ku dul shaqeyn doonaa. computerkaasna waa aalad la isticmaalo, waa electronic device saa wada taqaanaanba. wuu noocyo badan yahay. computerku wuu noocyo badan yahay. waa laptop, waa desktop, waa servers jira, mainframes jira. computerku wuu noocyo badan yahay. waxaan rajeynaa runtii in aad tahay arday ugu yaraan yaqaana maadada computer basic yaqaana ayaan rajeynaa insha Allah. marka computerkaas marka oo hadda bartiskiisa halkan aad ku aragtaan waa qalabyo marka la isku keenay. computerka ayuu ka kooban yahay, waana hardware iyo software, labadaas qaybood ayaa ugu waaweyn ayuu ka kooban yahay. marka qaybta koowaad oo hardware-ka waa wixii bartiska la taaban karo ah, oo physically la taaban kara ah, ee computerka uu ku dhisan yahay. marka hardware haduusan jirin, it means computer ma jira ka dhigan tahay. marka halkan waxaa inoo yaala marka waa system unit kan loo yaqaana, ama computer case, ama system unit. magaca ugu habboon waa system unit. system unit marka waxaa ku jira qalabyo dhammaystiraya computerkan ka dhigaya computer. sida for example qalabka ugu muhiimsan haddaan ka bilaabo waa CPU, waa central processing unit. waa meesha logic oo dhan uu ku jiro, waa meesha laga maamulo maskaxdii oo kale waa. marka waa meesha go-aanka qaadata. for example haddaan rabo inaan operationkan aan cancelo, tabkan aan cancelo, waa meesha amarka inta la tarjumo from laga tarjumo input laga tarjumo, kadibna loo tarjumo wax machine-ku uu fahmi karo loo tarjumo, kadibna CPU-gu uu ku dhaqmo uu ka dhigo amar caadi ah. sidoo kale waxaa jira cooler fan. cooler fan-ka waxay qaboojisaa qalabyada computer gudaha ugu jira. motherboard waa taqaanaan, motherboard-ka waxaa kusoo xirma dhammaan qalabyada computerka uu ka kooban yahay. kan waa ii sheeg maxaan ku idhahdaa PC caadi ah, personal computer waaye. laptopkan waa lamid, kaliya qalabyadiisa ayaa aad u yar kaliya. okay, halkan waxaa loo yaqaanaa expansion cards loo yaqaanaa, waa kaararka dheeraadka sida network cardka oo kale, video graphic cardka oo kale. waxyaabahaas waxaa loogu talagalay marka for example inaan haddaan rabo network inaan ku xiro computerkayga, haddaan ku xiro just waxaa u baahanahay kaarkaas expansion cardka inaan soo iibsado mid dheeraada. macnaha marka hore computer walbo PC ah wuxuu leeyahay one network interface card uu leeyahay. haddaan rabo marka mid kale oo dheeraada, then expansion cards ayaan soo iibsanayaa. expansion cardskaas waxay u fududeynaysaa in
maxaan ku irahdaa network interface kaar kale aan helo. Expansion waxaa loo yiri waxay tahay ballaarin waay. Marka RAM waa bartiga labaad isagana ugu muhiimsan waa random access memory ayaa laga wadaa. Waa memoryga computerka waana caawinta ugu horeysa oo computerka uu leeyahay CPU-ga marka laga soo tago. Sidoo kale waxaa jira hard disk jira oo laba nooc u kala baxda, HDD iyo SSD. SSD waa very fast, HDD-na waa laga tagay. Labadoodana waa waxay kala yihiin wax loo yaqaano storage driveska la isticmaalo ayay kala yihiin. So halkan sidoo kale waxaa inoo yaala keyboardkii, speakerskii. Hadda computerada oo dhan speakers waa ku wada xiran yihiin, ama shaashadaha qaarkood xitaa waxaa laga yaabaa in speaker uu ku xiran yahay. Halkan waxaa inoo yaala mouse oo loogu talagalay input output ayaa loogu talagalay marka. So marka system unit waa kana marka halkan inoo yaala. So marka this is waa basic waxa computer uu yahay. Marka intaan haddaan helno dan waxaa haysanaa functioning computer haysanaa, computer shaqeynaya haysanaa. So marka computer hadduu shaqeynaya aan haysano, what do we need marka maxaa u baahannahay? Computer kaligiis ma socon kara. Maxaa u baahannahay marka? Waxaa u baahannahay wax computerkaas dhaqaajiyo ayaan u baahannahay, kaasoo laga wado software. Halkan haddaan aragno computer waa maxay? Electronic device waaye that manipulates information, kaasoo information wax ka bedelaya ama xogta. Wuxuuna leeyahay computerka awooda inuu kaydiyo, retrieve uu sameeyo, uu helo ama uu process gareeyo datada ayuu awood u leeyahay marka. Okay, software waa maxay marka? Waa inay set of instructions, waa amar walba software computer ku shaqeeyo kaasoo computer ku sheegaya wuxuu sameeyaa. Hadda waxaan isticmaalnaa software. This is software. Waa Microsoft Edge browser. This is waa software. waxa ii fududeynaya inaan videogan aan duubo waa software. Okay, C3 aan isticmaali doono waa software. Folderkan folderka OS ku kamid yahay, laakiin computerka oo dhan haddaan hadda startiga soo furo, these are all softwares waay. Microsoft Edge waa software, film and TV waa software, WhatsApp waa software, calendar waa software, calculator waa software. Softwareka marka muxuu ii qabanaa baahi gooniya. For example, calculatorka muxuu ii qabanaa inaan sameeyo calculations 1 plus 1 inaan iraahdo hal lagu daray hal waxay lamid tahay 2, lagu daray 5 haddaan iraahdo waxay lamid tahay 7. So marka wuxuu ii qabtay dan ayuu ii qabtay marka softwarekaas wuxuu ii qabtay dan. Okay, baahi ayuu ii fuliyay marka. For example, hadda waa calculator scientifiga, waxaan u wareegi karaa calculator programmer. Intaas oo dhan ayaan sameyn karaa. Waxaan xisaabi karaa hexadecimal, decimal, octet, binary ayaan ku xisaabi karaa calculatorka yar. So marka this is a software waay. Waa small software waay oo aan isticmaalayno. Marka softwareda kala marka, for example, this software haddaan rabo inaan isticmaalo calculatorka, uma baahni inaan ku xirmo wax loo yaqaano wireless ama internet inaan ku xiranayo, uma baahni. So marka it's very easy to use. Waxaa loo yaqaanaa desktop application ama offline application ama standalone application ayaa loo yaqaanaa. Waa application aan wax kale u baahnayn. Okay, for example, Notepad, nothing wax kale u baahan yahay applicationkaas ma jiro. Notepad wax kale u baahan yahay ma jiro. Ba ta ja ha kha da ra sa. Okay, I'm using it. Waa save garaysan karaa, danna dib u soo saari karaa. Notepadka waa isagana waa software gooniya waa. Okay, Notepadka waa software isagana gooniya. Okay, waa kana dan isagana wuxuu ii qabtay dantan inaan file aan ku kaydsado ayuu ii qabtay. Softwareda qaarkoodna sida Google Chrome oo kale waxay u baahan yihiin inay hawshooda ku qabtaan, waxay u baahan yihiin ama applicationkaas sa u heleed waxaan u baahanahay inaan helo wax loo yaqaano inaan helo internet access, inaan helo ayaa loo baahan yahay. For example, waxaa jira hadda application loo yaqaano for example ama software loo yaqaano Quillbot muxuu qabtaa paraphrasing iyo naxwaha waxyaabahaas loo isticmaala Quillbot, ama uu ku saxaa paraphrasing uu ku sameeyaa. Quillbot marka waa software caqliga ku jiro, software ku jiro. So marka Quillbot aan u isticmaalo dan waxay noqonaysaa inaan haysto softwarekii. So markaysa inaan marka internetka haysto, inaan internet ku xiranahay ayaan u baahanahay marka. Okay, for example, waxaa kaloo kamid ah haddaan isticmaalayo mashiinkan hadda caanka ah ChatGPT loo yaqaan. Haddaan rabo inaan isticmaalo dan waa inaan internet access haystaa. Okay, internet access waan haystaa. Softwarekan haddaan rabo inaan isticmaalayo, so marka this is waxaa loo yaqaanaa web application ayaa loo yaqaanaa, ama website application ama online applications. Waa application ka duwan kan kale, same baahiyihii kuu qabanaa, wax walba kuu fulinaa, laakiin waxaa u baahan tahay internet access inaad isticmaasho. For example, waxaa kamid ah wasaaradda waxbarashada oo kale, applicationka ay imtixaanaadka soo geliso oo kale waa mobile application. Isagana waa software ka duwan waaye softwarekii kale aan aragnay. Marka softwareda way noocyo badan yihiin. Marka runtii waxaan rajeynayaa
inaad tahay arday ama qof aad u fahansan softwarada iyo qaabkay u shaqeeyaan. Sidoo kale waxaa jira software kale oo muhiim ah loo yaqaano system software. Muxuu yahay isaga? Waa kan computerka functionality-giisa inoo maamulo waay. For example, computerkayga hadda waxaa ku jira wax loo yaqaano operating system. Operating system kaasoo magaciisu yahay loo yaqaano Windows 10 loo yaqaano. Operating system kan marka anoo isticmaalaya operating system kan Windows specification oo jeeda. Operating system kan Windows 10 professional ah 22H2 ah oo la install garay taariikhda markay intaas ahayd, waxaa u baahan computerkayga ayaa u baahan. Ma isticmaali karo marka computerkayga isagoo aanan OS ku jirin. System softwares marka waa kala duwan yihiin. Waxaa jira Windows, waxaa jira Mac, isagana waa wuxuu ku yimaadaa computerradan Apple-ka ayuu ku yimaadaa. Waxaa jira Linux, koorsooyin Linux waa page waa ka helaysaan. Waa OS isagana. Android waa mobile, waxaa loo yaqaana mobile system software ama mobile operating system loo yaqaana isagana. Application software waa kuwa hadda kasoo hadalnay waaye. So marka software marka xaguu ka yimaadaa isaga? Software-ka adiga haddaa u baahato waa iska soo download garaysataa soo ma? It's good. Okay, inaad softwarada jiro aad isticmaasho waa wax fiican, oo software walba aad u baahan tahay baahidaada aad ku xalisato waa wax fiican. Software-ka wax loo isticmaalana waxay tahay in howlaha lagu fududeeyo, automation howlaha, in hab automatic howlaha lagu qabto. Waxyaabaha kale loo isticmaalo waxaa kamid ah store, in applicationada loo isticmaalo waxaa kamid ah in wax lagu keedsado oo kale haddii applicationka database uu ku xiran yahay oo kale. So marka softwarada xagee ka yimaadaan marka? Ma macdan dhulka laga qodo miya? Ma roob miya soo da' miya oo ii sheeg cadceedda iyo daruurta iyo waxbay soo raacaan? Maxay tahay marka? Ma resource-gan software-ka xaguu ka yimaadaa? Software-kan wuxuu ka yimaadaa wax loo yaqaano programmersku ka yimaadaa, waana wax la qoro. So marka shaqada software-ka loo sameynayo marka la sameynayo waxaa la yiraahdaa programming ayaa la yiraahdaa marka. Programming-kana wuxuu u baahan yahay in computerka lala hadlo. This is a computer. Computerka waxaa u baahannahay inaan la hadalno. Sidee marka computerka ula hadali karnaa? Waa in luqadiisa aan naqaana. For example, dal ajnabi ayaa joogtaa for example, kan maxaa ka soo qaadaa qof bini'aadan for example ka soo qaad. Waxaa joogtaa dal ajnabi ayaa joogtaa marka adiga waa qofkaas. Waxaa ka soo horbaxay marka qof cad ayaa ka soo horbaxay marka for example. Qof cad ayaa ka soo horbaxay. Waxaa rabtaa marka inaad salaanta marka aad yeelataan wax loo yaqaano communication. Haddaa qofkii af Soomaali kula hadasho ka hor waa tiraahdo sidee tahay? Haddaa tiraahdo ka hor qofka sidee tahay? Muxuu ku leeyahay? Ya, oo kula yaabaa soo ma? Okay. Haddii marka logiga saxda ah muxuu yahay? Maadaama aragtay qof cad, waxaad imagine garaynaysaa marka ama sorting samaynaysaa marka qofkan cad xaguu raacsan yahay? Ma Asian miya? Ma Arab miya? Ma European miya? Muxuu yahay marka? Noocuu yahay ayaa marka fiirinaysaa. For example, waxaad dareentay in qofkan uu yahay caddaan inuu yahay ayaa dareentay. Marka waxaa leedahay hi, how are you oo kale soo ma? Isagana marka hadduu codkaaga uu maqlo, communication-kiina sax uu noqdo, isagana uu ku fahmayaa soo ma? Wuxuu ku leeyahay marka isagana muxuu ku leeyahay? Jawaab uu ku soo siinaa soo ma? Wuxuu ku leeyahay hi, I'm fine uu ku leeyahay soo ma? So marka halkaa waxaa idinkaga bilowday communication between you and you. Laakiin this is waxaa waaye human side way. Bini'aadamka waxay ku wada hadlaan textigaas ama qoraalkaas ama afkay ku wada hadlaan. Computerada marka maxay ku wada hadlaan? So marka totally waxay ku wada hadlaan computerada different approach waaye. Computerada way ka duwan yihiin marka. Computerada kaliya waxay ku wada hadlaan wax loo yaqaano binary ayay ku wada hadlaan. Binary marka la leenayo waa maxay? Computerka wuxuu ku wada hadlaa kaliya luqadda loo yaqaano binary-ga ayay ku wada hadlaan. Okay, luqadda binary-ga maxay tahay? Waa 0 iyo 1 kaliya. Okay, suppose inuu kan laptop ya desktop yahay ama okay sana ka fudud saas leeyahay. Okay, marka this is waa desktop oo kale waaye. For example, this is waa desktop waa computer marka. Waxaan rabnaa marka computerkaas inuu la hadlo another computer kale oo halkaa yaalo. For example, laptop oo kale rabnaa inuu la hadlo. Waxaan rabnaa laptop halkaa yaalo rabnaa inuu la hadlo marka. For example, waa laba computer. Maxay ku wada hadli karaan? Waxay ku wada hadli karaan wax loo yaqaano only luqad loo yaqaano binary loo yaqaano. Luqadaas waa 01. Okay, markuu fariinta sida u soo diro, markuu computerkan fariinta sida u soo diro, computer fariinta markuu sida u soo diro,
kadibna computerkan fariintii uu fahmo kadibna isagana jawaab ayuu kusoo sii doonaa. example aan ka wada okay computerka isagana jawaab kusoo sii doonaa. waa marka laba computer ay rabaan inay wada xiriiraan. so marka habkaana waa hab electroniga, binary-ga waa hab electroniga, waa marka electronic computer wada xiriiraan. that's why wax ka dhigay fast ka dhigay waa waxay tahay inuu isticmaalayo wax loo yaqaano 0 iyo 1 kan. marka probability oo laba ayuu leeyahay isaga, ama waa 0 ama waa 1. so marka binary numbering-ka waa ciwaan kala gooni ah oo hadda ciwaankeena noogu jirin, laakiin just waxaan rabay for clarification inaan fahanno marka maxay laba computer ku wada xiriiraan. waxay ku wada xiriiraan binary language ama wax loo yaqaano machine language. okay understood waa fahan. maxay marka ku wada xiriiraan computer oo noocu doona ahaado, maxay ku wada xiriiraan computer iyo annaga maxay ku wada xiriiraan marka computer iyo bini'aadam maxay ku wada xiriiraan marka. ilaa bini'aadamku hataa hadda soo sheegna wuxuu isticmaalaa hab, wuxuu isticmaalaa loo yaqaano verbal, uu isticmaalaa ama wuxuu isticmaalaa wax loo yaqaano linguistic wax la yiraahdo ama luqad ayuu isticmaalaa. marka maxay ku wada xiriiri karaan marka computerka iyo bini'aadamka. maadaama aan soo sheegnay computerka kaliya inuu fahmo 0101 oo waa qalday 010101 maadaama uu fahmo, sidoo kalena aan soo sheegnay bini'aadamka inuu fahmo ba ta ja ha kha uu fahmo. so marka how ay ku wada xiriiri karaan marka, maxay ku wada xiriiri karaan marka labadan ama a b c d ama alif axmaale ba xarfaha uu fahmo, dan sida ku wada xiriiri karaan marka. waxay ku wada xiriiri karaan through programming language. marka qofkan bini'aadamka waa inuu bartaa wax loo yaqaano programming language, waa inuu bartaa ama waa inuu programmer yahay. haddii programmer uu yahay marka qofkan wuxuu awood u leeyahay inuu isticmaalo some language. for example inuu qori karo print, inuu dhihi karo print kadibna hello intuu qoro kadibna through that kind of hadda for example luqadda noo soo qaad inay hadda tahay c oo kale inay tahay. so marka soo luqadaas isticmaalaya inuu la hadli karo computerka luqadaas iyadoo la isticmaalayana kadib ay samayn karto wax loo yaqaano interpretation, ee tarjumi karto kadibna computerka ay ugu tarjumi karto wax loo yaqaano habkii 01ka ee ugu tarjumi karto kadibna ay dhihi karto waa 0101010101. okay kadibna computerka uu kusoo daabici karo wax loo yaqaano marka la tarjumo kadib hello. afansa so marka this is xiriir ka dhexeeya waaye bini'aadamka iyo maxaan ku idhahdaa computerka. the only thing oo fududeyn kara waxay tahay through program. for example filekan haddaan rabo hadda inaan xiro dan waa xiri karaa. that's why and that's how oo computerka iyo annaga hadda communication u leenahay. that's how videogan u daawanayso. that's how softwareka iyo waxaad aragteen ay u wada shaqeeyaan marka. okay waa through binary language marka ama binary system iyadoo la isticmaalayo ama through programming language. programming language-ka marka waxay kala leeyihiin levels ay kala leeyihiin. haddaad maqasho small ama wax loo yaqaano low level language, haddaad maqasho waa luqadda binary-ga. haddaad maqasho high level language waa luqadda programming annaga aan qorno. for example print hello inaan iraado oo kale. haddaad maqasho mid level ama medium level ama haddaad maqasho assembly language, haddaad maqasho waa luqad hore oo jirtay oo runtii aanan ahayn machine language-na ma ahan, high level-na sooma gaarin. marka sidaasoo marka computerka uu ku wada xiriiri karaa. for example hadda qofkii ku yidhahda programmer ah it means waxay la micno tahay waxaan la hadli karaa computerka, waxaan wax ka soo saari karaa computerka. anoo laptop lii dhiibay ama any computer lii dhiibay ayaan waxaan samayn karaa program fahmi kara ama aniga fahmi kara ama bini'aadam kale fahmi kara ayaan samayn karaa. that's marka sharaxaadda fudud haddaan sameeyo waa programmingka. qofka programmerka maxaa laga rabaa marka inuu problem solving sameeyo. every program hadda aragtid waa problem solving, problem xaliyey. every calculator problem xaliyey. folderkan wuxuu xaliyey problem. softwarekan video ku duuboy wuxuu xaliyey problem. so marka waxaa laga rabaa marka inaad mar walba haddaa program aad dhisayso waa inaad ku fikirtaa problem solving, muxuu xalinaa programka waa inaad ku fikirtaa. so sidoo kale waa inaad fiirisaa language, waa inaad doorataa luqadaha programmingka way fara badan yihiin. haddaan gelin halkan list of all. okay haddaan iraahdo halkan list of all, hadda waa ujeeda soo intaan kaliya waa software. hadda inaan iraahdo list of all kadibna halkan uu isoo taxo inta maxaan ku irahdaa optionska ah oo u sameeyo wax loo yaqaano recommending ama recommendation oo ii keeno waxa aan ku dhufan karo ama uu u maleeyo macnaha. intaan kaliya waxay tahay software gooni ah ayay tahay marka. okay
list of all haddaan idhaahdo programming languages haddaan idhaahdo from 1950 oo la sheego in xilligii ay soo baxday xilligii luqadda ugu horeysa soo baxday ilaa 18 oo islaantan la yidhahdo Ada Lovelace loogu magac daray inay tahay programmerkii ugu horreeyey ama develop garaysa program ama machine programmisa. So marka haddaan halkan fiirino marka waxaan soo saari karnaa ilaa history hore ilaa waxaan tagi karnaa marka luqado hore Algol, COBOL, Basic waa luqad, Pascal waa luqad, Smalltalk, C, SQL waa luqado 1972 soo wada baxay. Ada waa luqad iyadana Objective C ilaa hadda la isticmaalo loo isticmaalo operating systemkan la yidhaahdo Mac loo isticmaalo especially mobilada loo isticmaalo iOS-ka, Haskell, Python, Ruby, Java, JavaScript, PHP intaan oo dhan C# oo 2000 Scala, Go, Swift intaan oo dhan waa luqado programming ee marka la isticmaalo ee jira waay marka luqadaas programming oo dhan waxay ka wada sameeyeen in ay isku xiraan qofka bani'aadamka ee programmerka iyo machine in ay isku xiraan ayay ka wada sameeyeen. So marka luqadaas ay u kala dooranaysaa luqad software walba laguma samayn karo luqad walba oo jirta software walba wuxuu u baahan yahay special luqad ayuu u baahan yahay gooni ah. For example page-kan hadda markaa dhisayno C language ma baahnin page-kan markaa dhisayno waxaa u baahanahay luqado kale inaan isticmaalno like JavaScript, like PHP, like HTML, like CSS, like SAS waxyaabahaas u baahanay inaan isticmaalno saan u dhisno page-kan saan u dhisno marka calculator saan u dhisno iyo page-kan saan u dhisno isku mid maaha. So marka it's not the same toolka la isticmaalayo isku mid maaha. haddaan rabo marka inaan gaari sameeyo haddaan rabo inaan airplane sameeyo isku mid maaha marka qalabyada ama waxa aan isticmaalayo marka. Okay, writing code marka waa inaan codeka qoraa waa inaan debug sameeyaa oo aan ka raadiyaa wax loo yaqaano qaladaadka jira waa inaan raadiyaa marka debugging waa inaan sameeyaa testing waa inaan sameeyaa marka aan tijaabiyaa softwarekii aan sameeyey. Sidoo kale documentation waa inaan sameeyaa haddaan softwarekii aan qoro then waa inaan documentation aan ka sameeyaa si mustaqbalka aan dib ugu laaban karo marka documentationka marka waa very important marka code walba aad qorto waa inaad documentationka aad u samayn kartaa marka codekan wuxuu qabanayo iyo ciladaha uu xalinayo iyo problemka uu xalinayo. Sidoo kale waxaa jira tools la isticmaalo la yiraahdo version control ama Git iyo GitHub kuley qaarkiina maqasheen oo malena version controls ama version control systems daayiraado waa system badan Git ayaa ugu horeeya waxaa ku xiga Apache Supervision, Azure DevOps Server, BVC waxaana dhan waxaa loo yaqaanaa version controls ayaa loo yaqaanaa systems ama VCs waxay qabtaan codeska lagu wadaagaa collaboration lagu sameeyaa waxyaabahaas oo dhan code qof kale uu qoray soo qaadan kartaa isticmaali kartaa waxyaabahaas oo dhan adigana codekaaga waad gelin kartaa waa social media for coding waa. So marka deployment waxay tahay in softwarekii markaad documentation aad samaysay waa tijaabisay waa saxday qaladaadkii wixii ku jiray documentation aad samaysay version control aad isticmaashay dan waa inaad deployment aad samaysaa markaad aad dhamayso waa inaad deploy garaysaa waa inaad geysaa marka waa inaad environmentiga uu ku dhaqmi lahaa aad geysaa waa ciddii softwarekan kaa codsatay ama problemku xalin lahaa softwarekan meeshii loogu talagalay waa inaad geysaa marka deployment waa inaad samaysaa. So marka programming waa wax creative u baahan problem solving u baahan waa marka problem ma xalin karo qofan creative ahayn qofan problem solver ahayn ma xalin karo marka. Okay, basic of programming language waan soo aragnay kan C language marka maxay tahay waa C language waa general purpose programming language waa luqad general purpose loogu talagalay in waxyaabo fara badan lagu xaliyo waxayna leedahay saameyn weyn ay leedahay waxaa hormariyay ninka la yiraahdo Dennis Rich wuxuuna ku hormariyay Bell Labs. C waxay ka mid tahay luqadaha ugu caansan ee la yaqaan ay ka mid tahay luqado kala duwan sababtu maxay tahay luqado kala duwan oo hadda waa weyn ay saameyn ku leedahay marka sida luqada C++, Java, PHP luqadahaas oo dhan saameyn ayay ku leedahay marka without C marka luqadahaas ma dhalan lahayn ama lama horumarin lahayn. C waxay kaloo leedahay sifaad ama sifooyin gaar ah sida procedural programming waaye waa luqad ku dhisan hab procedure ah ama function isku dhisan. Procedure maxay tahay hab gooni oo la raacayo from A to Z ah. For example haddaan rabno inaan problema qaar xalino waa inaan step 1 marna step 2 marna step 3 marna step 4 marna step 5 marna kadib aan heli karnaa. For example cuno karinta oo kale haddaan rabno inaan cuno karino waa inaan step 1 bilaawna step 2 kalena step 3 sameynaa step 4 sameynaa. cunada ayadoo ceeriina sax ma saari karno waa inaan step kood soo marnaa waa cunadii aan nadiifinaa maxaan ku yiraahdaa hagaajinaa si isu leedahay aan sameynaa kadibna aan karinaa kadibna aan sugnaa kadibna aan isticmaalnaa marka ama aan cunaa. So marka halkan sidoo kale waxaa lagu yiri waa low level and high level language labadaas awood ba isku leedahay. C language waa luqad portability la qaadi karo meel walba la geyn karo
waa efficiency fiican ay leedahay memoryga iyo system resource waxay isticmaashay si fiican library fiican ay leedahay luqado kale waxay ku leedahay kiisaan soo sheegnay sidoo kale applications badan oo lagu horumari kara sidoo kale waxay tahay learnability waa luqad la baran karo marka habka ugu fudud course-kan usoo bandhigi doona insha Allah waa learnability luqad la baran karo oo fudud toolska la isticmaalo marka qaybteen ugu dambeeya waxaan uga hadlaynaa toolska la isticmaalo sida loo sameeyo C language marka toolska la isticmaalo way fara badan yihiin marka toolska waxaa ka mid ah C3 ayaa ka mid ah halkan ku arki kartaan C3 5 haddaa rabto C3 inaad isticmaasho just halkan waxaa ku qoraysaa download C3 aa leedahay okay kadibna waxaa kasoo dejinaysaa softwareda mid ka mid ah for example badanaa software walba ama website walba wax kasoo dejinin don't try it softwareda qaarkood lama aamini karo C3 for C de okay I think this one is okay C3 ga marka halkaas ayaa kasoo dejin kartaa description-ka ayaan idinkula wadaagi doonaa insha Allah sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa dev C++, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa code blocks auto C intaan oo dhan waa software lagu isticmaali karo in lagu horumariyo wax loo yaqaano C language lagu horumariyo Visual Studio Code waa la isticmaali karaa iyadana ama VS Code loo yaqaano waa la isticmaali karaa Eclipse intaan software waa la isticmaali karaa anaga laakiin waxaan isticmaali doonaa insha Allah haduu leeyahay C3 iyo qaab kale ka fudud ayaan tusi doonaa insha Allah okay marka waxaan sidoo kale qoraynaa first hello world programka ugu horeyso ama programka ugu horeeyo C language ayaan qoraynaa marka insha Allah so marka toolska for example waxaa soo dejisay ama isticmaashay C3 sida C3 loo soo dejiyo iyo sida loo isticmaalo labadaba waxaan sameynaynaa soo gelinaya insha Allah okay waxay iga rabaa activation okay no problem halkaan aan tagayaa waxaan sameynayaa qaabkii kale aan sheegay in C language program lagu qori karo halkaan waxaan leeyahay online C compiler gaar ahaan waxaan rabaa programs website-kan loo yaqaan programs so marka qof walba computer ma haysto software lagu soo dejin karo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay mobile ka daawanayaan videogan so marka hadaad mobile ka daawanaysid dan waxaa u baahan tahay programs ama C compiler inaad ku qorto Google appkaaga ama maxaan ku irahdaa meesha applicationska laga soo dejiyo Google Play kadibna aad tiraahdo C compiler kaliya waxaa ku qoraysaa C compiler sidaan oo kale halkan ugu qoran tahay C compiler ayaa ku qoraysaa kadibna waxaad isticmaali kartaa marka wax loo yaqaano C compiler marka ku qorto kadibna waxaad isticmaali kartaa applicationada kugu soo horeeya soo degsan kartaa C compiler kadibna waxaad qoraysaa C language programming ama programka doonto C language ay ku qori kartaa kadibna run ayaa leedahay sida easy ugu fudud adoo aan software waxba soo degsan marka throughout our course intaan course ku jirno waxaan isticmaali doonaa programs ayaan isticmaali doonaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo C language programming marka waa sidan waxay ka kooban tahay qaybahan ayay ka kooban tahay C language okay kuwan waxaa loo yiraahdaa comments la yiraahdaa comments programka ma saameeyaan for example kan waxaan dhihi karaa welcome to Softigate Academy ayaan leeyahay halkan bar wax programka ma saameynayo first C language program okay wax programka ma saameynayo so marka wuxuu ka kooban yahay programka qaybtan kore oo loo yaqaano preprocessors loo yaqaano hypertext waxa loo yaqaanaa preprocessors qaybtan kore waxa loo yaqaanaa ama qaybtan kore hadaan ku sheego preprocessor directives wax loo yaqaano marka waxay ay hagaan waa file stdio.h waxa laga soo gaabiyay standard input output ayaa laga soo gaabiyay .h taasna waxay tahay header file waxay tahay header file okay waxaana noogu dhex jira tools fara badan oo halkan ku isticmaalayna waxay ku dhex jiraan filekan C language compiler ayaa yaqaan so marka maadaama kan C language compiler uu yahay stdio.h markuu garan karaa marka stdio.h waxaan ka tirsanay hadda halkan ku qorno dan error anoo soo baxay for example printf hadda halkan u bedelo printf
kadibna programkeena aan dhanaan run kadibna programkeena aan dhanaan run dan halkan error jira marka jida you mean printf ma rabtaa ku leeyahay because printf waxay ka mid tahay toolska laga heli karo ama functionska laga heli karo wax loo yaqaano stdio.h laga heli karo ay ka mid tahay soo marka ma qaldi karo sidaas ayaa qaladka lagu soo qabanaya marka kadibna halkan waxaan leeyahay printf hello world ayaan leeyahay okay run hadaa iraado dan hello world ayaa halkan isoo baxaysa marka same programkan haddaan ku qoro c3 waa okay isla same output ayaa isoo baxaya marka soo marka qaybtan kor waxaa loo yaqaanaa processor directive standard input output file loo yaqaanaa qaybtan waxaa loo yaqaanaa main function loo yaqaanaa waa functionka ugu weyn ee uu leeyahay programka uu leeyahay qaybtan dhexena waxaa loo yaqaanaa body ayaa loo yaqaanaa waa programka amarkiisa waay hadday software maxaa soo sheegnay inuu yahay instruction soo ma software hadday maxaa soo sheegnay inuu yahay instruction macnaheedu waa maxay waa instruction waa amar software waa maxay okay halkan application software consists of programming tools software is typically written in programming language okay software marka waa instruction waa amar marka la rabo in la fuliyo waay so marka halkan waxaa la yiri amarkaas marka aan rabno in la fuliyo okay aan iraano refresh amarka marka print waa fulin f na waa function laga soo gaabiyay hello world is samay hadaan rabo marka wax kale inaan daawo waxaan leeyahay print f no space aan lagu ogoleen ma jiro laba dhibcood kadibna waxaan leenahay subscribe to channel kadibna semicolon waa khasab semicolon in ay u dambeysaa any statement walba oo ku jiro bodyga between this bracket and this bracket waxaa loo yaqaanaa body waxaa la rabaa inay ku dhamaato wax la yiraahdo semicolon halkan u jeeda semicolon male soo ah halkan semicolon male laakiin wixii halkan ka dhaxeeyo any statement walba aan qorayno waxaa la rabaa in semicolon ay ku jirto for example statementiga khasab ma inaan wax qoro for example waxaa dhihi karaa semicolon kaliya kan waxaa loo yaqaanaa null statement ayaa loo yaqaanaa because amar meesha kuma jiro laakiin wax qalad kuma qori karo test oo kale hadaa iraahdo wax qalad kuma qori karo dan error soo baxay test maxay tahay function oo baahan in la cadeeyo miya undeclared ma jida okay laakiin haddaan iraahdo just null isticmaalo statement oo kadibna run iraahdo dan uu shaqeynaa hello world subscribe to our channel halkan iraahdo subscribe to our channel okay so marka softwareka marka inuu amar yahan ku tusaa for example hadda fiiri hello world iyo subscribe to channel waa maxay waa isku dhegan yihiin soo ma so marka halkan waxaan gelinaa amar la yiraahdo new line aan gelinaa waxaan rabaa in new line lagu qoro subscribe to channel run aan leeyahay hello world subscribe to channel waxaan rabaa haddana new line kale in halkan la geliyo /n aan leeyahay kadibna run aan leeyahay subscribe to channelkeena subscribe grade so marka caawa intaas ayay noogu dhantahay insha allah haduu ila yiraahdo koorka wax kala dayin kartaa descriptionka failkan waa idila soo wadaaga insha allah wixii su-aalaha waxaa noo soo gelisaan commentiga insha allah. Assalaamu calaykum.